xildhibaan aadan ibraahim dhaayow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay gurigiisa lagu weeraray weerar bambaana ah ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyay telefishinka Star TV waxa uu kaga warramay sida weerarkaasi u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay isagoo oo dhanka kala sheegay in uuna wax dhaawici ka soo gaarin weerarkaas balse ay weerarkaasi ku dhaawacmeen 5 qof oo ay ku jiraan staafkiisu waa mahadsantihiin telefishinka Star TV waa in salaama waa in soo dhaweeyna tan kale lamaad midka idinka maqashano barnaamijka ka maqashan waa jirta xalay adiga fiidkii markii mas'alada markaa laga baxay kadib ana oo gudaha ku jiro waxaan maqlay bambaanooyin markii bambaanooyinka ay dhacaan kadib adiga wiishi iyaga xabaday ridaayeen xabad kale waa lagu soo ridaayay ma garan karo marka aniga cidii ku soo riday in kala hadaan ma aqaano laakiin markii dambe ay xabadii isku darsoomeen xabadii aamustay banaanka soo baxay marka adiga wiishi banaanka joogeen adiga qaar dhaawacmay qaarna ma dhaawacmin adiga ilaa adiga 5 wiil haduu waxay gaareen laakiin adiga 4 ah oo daran kan shanaad oo dhaawis waa fudiyay isla markii adiga yeelayeen way soo gaareen iyo habadii socotay qaar yimaadeen oo kuwa mas'uuliyadda iyo kuwa booliiska taliyaha qaybta hogaaminaya taliyaha degmada gudoomiyaha degmada adiga isla markii waa qaadnay isbitaalladaas adiga caafimaadka goobaha caafimaadka u qaadnay alxamdulillah caafimaadkooda hadda boqolkiiba u fiican yahay ilaa adiga 2 wiil oo yar oo aslanahay in qabi wax u baahan doonaan laakiin alxamdulillah ani waa badbaaday dad badan kale waa badbaaday adiga waan gartay xildhibaan ma markii ugu horeysay weerar noocan oo kale lagu la eegtay miyaa mise weeraro hore ka horreeyay wallahi hamar muqdisho intaan joogay hadda weerarkaas kii baarlamaanka la soo weeraray jiray iyo meelahaas waa joogay mana dhow mar la isoo weeraray waa jirtay meel oo gobol ah gobolka Baydhabo tuulo kamid ah oo dheeraado arday gobolka oo joogo inay la kacaan jirtay laakiin magaalada muqdisho weli si goona la eegin oo arday la soo weeraray markii goos waan gartay hadda tirada rasmiga ah staafkaagi ee dhaawacmay iyo dadkii guriga joogay meeqaad ku sheegi kartaa ay 4 wiil oo staaf ah 3 wiil oo staaf ah iyo wiil oo marti ay adiga hal bil amal wiil joogo oo caafimaad iyo waxa uu yimaaday iyo ninkii darawalka yahay ilaa 5 taas waa sameeyna ma kugu yeelatay xalay markii bambada gurigaaga lagu dhuftay maxay yeelay waxaan horta wax mas'uuliyiinta hana qadaano shacabkana waan horay ugu dhajaa waay waxaan ay lagu bilaawayna ma aha wax maanta la maqalina ma aha marka wax saameyn oo gooni iga yeelada ma jiraan niiday waa dhisantahay waana fiicanahay alxamdulillah boqol haddana shaqada insha Allah taala sidii uu sii wadi doona wax saameyn ah iyo isbedel ay ugu keenay hadda wax maxaad ku tilmaami karaysaa hadda dadkii ku soo weeraro ma arintaas waa fashilantay say ay rabaan ma naqanan waxay rabaan inay gudaha soo galaan marka babaanay soo tuuraan ay dadka dhaawacaan inay hadan ay gudaha u soo galaan rabaan oo suurtagal waa say wiilishi hadii waa dagaalameen wiilishi ilaalada ay tahay markii ay wiil firfircoon ay hayaan insha Allah taala maaha xildhibaankii ugu horeeyay ee la weeraro waxa dhacday in xildhibaano badan lagu laayay magaalada Muqdisho Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho